السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين بداوضيال kusoo dhawaada channelkeeni ay reeb media marka hore subscribe dheh channelka lana wadaaga asxaabtaada. Waxaan idin haynaa oo idin soo gudbinaynaa maanta qaybtii labaad ee qisadii murugada lahayd ee ku dhacday gabadhii u dhalatay dalka Ruushka. Waxay noo joogtay maalintii hore gabadhii iyadoo u duulaysa dalka Ruushka si ay u soo cusboonaysiisato baasaboorkeedii. Waxayna ka bilaabmaysaa maanta waxaan xidhay dharkii dhamayska tirnaa xijaab ilaa niqaab. waxaan kornay diyaaradii ninkayga agtiisa ayaana fadhiistay wuxuuna idhahay dharkan biloolay nagu dhiba. waxaan idhi magaaladan adeecnaa oo Allah amaradiisa ayaan ka tagnaa. dadku kama daalayaan ilaa wayna dhibayaan, way caayayaan, way igu qoslayaan, way ii soo dhawaanayaan ina jiirjiirayaan. Khalid wuu carooday laakiin ma fahmayo afka ay ku hadlayaan. waxaan soo fiiriyay anoo dhoolla cadaynaya dhanka Khalid oo aan u turjumay waxa ay sheegayaan. wuu xanaaqay laakiin waxaan ku idhi gabdhihii asxaabaadka ahaa iyo kuwii taabiciinta ahaa sidii loo dhibay tani uma dhawo ee caroon. waxaan gaarnay wadanka Ruushka. waxaan moodayay inaan abaarayno guriga gabadha laakiin waxay ii sheegtay inaan qol kiraysanayno dabadeedna aan danaheena dhamaysanayno maalinta u dambaysana aan soo booqanayno maalin uun ka hor soo bixitaankeena. sidaa ayaana noo fiicnayd amni ahaan maadaama reerka ay gabadhu ka dhalatay ay aad ugu adkaayeen diintooda. waxaan aadnay meesha sharciyada. waxaan u tagnay shaqaalihii koowaad si uu noogu bedelo sharciga. wuxuuna na yiri keen sawir ay tintaadu bannaan tahay waayo kan ma waafaqsana shuruucda u degsan wadanka. waxay xaaskaygii tiri kan baan ogolahay mana keenayo mid qaawanaan ah. wuu ka diiday shaqaalihii labaad ayaanan u tagnay isna sidii oo kale ayuu yiri wayna diiday. waxay noo direen wasiirka meesha asagiina sidii ayuu yiri. way ku qancisay inuu habeeyo sharciga. wuu diiday wuxuuna yiri Jaanis idinma hayo ee aada magaalada Moscow oo ku taalo xarunta ugu weyn ee sharciyada. way isoo fiirisay ina tiri inakeen aan aadnay Moscow. waxaan idhi laa yukallifu Allahu nafsan ilaa wuscaha. alle ma kallifo nafna ilaa intay awooddo maahe. waxaanan u sii raaciyey fattaqullaha mastadactum. alle ka cabso intaad awooddo ee iska yeel waxa ay doonayaan hanana gelin safar iyo dhib kale ah. waxaanay igu qancisay inaan raaco waana raacay anoo cagajiidaya. waxaanan tagnay magareeshinkii weynaa ama xaruntii weynayd. waxaan u tagnay shaqaalihii sidii kuwii hore ay nagu dhaheen. waxay noo gudbiyeen ninkii ugu weynaa xagga maamulka uguna sarreeyay meeshaas. wuxuu ahaa nin adag oo qabiix ah. wuxuuna ku yiri keenkii qaawanaa ee u madaxu bannaanaa. waxayna tiri ma hayo ee igu samee saas. wuu xanaaqay wuxuuna ka qaaday sawirkii iyo baasaboorkiiba. wuxuuna ku xaraystay khaanad kuna yiri kuma siinayo ilaa aad keento sawirkii madaxu bannaanaa. waxay kula hadashay afka Ruushka. waxaanan idhi iska sii waa daruuri oo ma arkayaan dad badani hadhowna guriga meel ayuunbaad ku qarsan doontaaye. waxay tiri waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhraja wayarsuquhu min xaysu laa yaxtasib. waxaana soo aadnay gurigii aan deganayn anoo marna cadhoonaya marna naxariis u muujinaya xaaskayga. gurigii markaa imanay waxaan cunnay cunto waanan tukanay. waxaanan rabay inaan seexdo laakiin xaaskayga ayaa isoo fiirisay ina tiri Khalid ma waxaad rabtaa inaad seexato? haa ayaan idhi miyaanan daalanayn? waxayna tiri meeshan waa meel shar badan inagoon alle ka magan gelin oon ducaysan salaad badanna tukan ha seexan. waan tukaday alle ayaan bariyay waana iska seexday. iyadii ma seexan markasta oo aan isrugo waxaan arkaa iyadoo sujuudsan marna taagan mar fadhida mar ooyeysa marna ducaysanaysa ilaa uu waagii ka bariyay. markaas ayay i toosisay ina tiri salaadii subax ayaa la gaaray ee tuko. waan tukanay waana seexanay. kadib hal saac markii la gaaray ayaan toosnay. markaa ayay i tiri inakeen aan aadno meeshii sharciyada ah. waxaan idhi maxaan ka doonaynaa ma haysano sharcigii iyo sawirkii midne. xujo si kastaba ha ahaatee waan aadnay. markii aan meeshii tagnay ayaa waxaa noo yeedhay shaqaalihii bannaanka fadhiyey. waxayna ku dhaheen gabadhii shalay ma adiga? haa ayay ugu jawaabtay. waxayna dhaheen magacaagu soo heblaayo ma ahayn? haa ayay dhahday waa lagu dhameeyey sharcigaagii sidii aad rabtay weliba.
Allahu akbar alxamdulillaah waxaan soo aadnay gurigii annagoo faraxsan waxaanan booqasho u aadnay sidii ballantuba ahayd qoyskii xaaskayga waxaanan arkay guri duug ah oo aan isleeyahay dad faqiiriin ah ayaa leh waan gargaraacnay waxaana naga furay wiil walaalkeed ah waa u dhoolla cadaysay xaaskaygu wuu yaabay wiilkii walaashiis oo iyadoo nool u timid haddana wuxuu la yaabay dharka ay wadato way isa salaameen inta shareerkii ayay fayday way isqooroqooreeyeen kadib gurigii ayaan gudaha u galnay fadhiga ayaan fadhiistay iyadna way ag fadhidaa hadda waxay u gudubtay gudaha waxayna salaamtay eheladeedii waxaa bilowday hadal badan laakiin maanan fahmayn waxa ay ka hadlayaan ilaa iyo uu markii dambe hadalladoodii ay noqdeen kuwo adag oo kor ah welibana u eg mid uu dagaal ka muuqdo waxyar kadib waxaa ii yimid 3 wiil oo aan islahaa way ku soo dhaweynayaan laakiin inay i dhibaan iigu yimid waxay igu bilaabeen feer iyo haraati waan iska caabiyey intii aan awooday laakiin way i jilciyeen siday ii garaacayeen waaqay eraya ah ii gargaar laakiin say ii tumayeen waan tabarbeelay ilaa aan mooday inaan gurigan ku dhimanayo markii dambe waxaan eegay xagga iyo albaabka waanan u cararay si aan uga badbaado wuxuushtan wax magaratada ah albaabkii ayaan furay waana cararay way cayrsadeen laakiin dad ayaan kaga dhex dhuuntay gurigii ayaan tegay waxaana iska dhaqay dhiiggii ka socday sankayga iyo afkayga la soco qaybta dambe